ka bilownay xarunta Solja ee Hargeysa ayay ka socotaa ilaa iyo waxa isdiiwaan geliyay 300 oo suxufi isdiiwaan geliyay gobolada marka ay imika halkan Hargeysa ka dhamaato baan ugu talagalay inaanu gobol walba ka soo fulino marka gobol walba halkiisa ayaa lagu geyn doonaa diiwaan gelinta iyo xog ururinta waxa runtii muhiim ah in la ogaado inta aanan Hargeysa ka bilaabin waxa aanu sanadkii hore sample ama tijaabo ka soo qaadnay intii aanan Hargeysa ku bilaabin saddexda gobol ee Boorama, Berbera iyo Burco oo ilaa iyo 100 iyo in ka badan oo suxufi runtii aan xogtan ka soo ururinay marka soo ururinay laakiin daabacaadii kaarka fursad waqtiga uma helin imika ayaan iyaga ku bilaabaynaa maadaama uu xogtoodii hawshoodii inta badan hayno dabeedna markaanu saddexda gobol kaarkii u qaybino baanu gobolada kalena hadii la yiraahdo ku xogsiin doonaa marka dhammaan waa sida aan ku sheegay diiwaan gelin iyo tirakoob aan ku ogaano ama ku ururino xogtii suxufiyiinta iyo jiritaankii suxufinimo ee suxufiyiinta Soomaaliland ka howlgala wada